الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: وهو أسأل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. إلهي سبحانه وتعالى kitaabkiisa munazalka waxa uu noogu cadeeyey inay jiraan dad soo iibsada si ay dadka uga dhumiyaan jidka ilaahay arrimooyin fara badan oo ilaah diintiisa la raba in markaa looga hortago. waxaa ka mida mawduuca aan rabna inaan galabta ka hadalno, kaasoo ku saabsan dhegaysiga heesaha iyo xukunka loogu talagalay ama ay leeyihiin dhegaysiga heesaha. heesuhu waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga qalaliya, waxay ka mid yihiin waxyaabaha ilaahay diintiisa dadka ka durjiya, waxa ay ka mid yihiin waxyaabaha shayaadiinta farax geliya, ilaahayna uu ka caroodo subxaana wa tacaala. sidaa darteed waxaa loogu talagalay bulshada muslimiinta ah oo dhan inay iska ilaaliyaan kana fogaadaan heesaha iyo dhibaatooyinka ay leeyihiin. ilaah kitaabkiisa munazalka waxa uu ku yidhi: wa min annaasi man yashtarii, dadka waxaa ka mid ah ola soo iibsata oo gadanaysa lahwa alxadiidi, xadiid midka lahwiga ah, waxa lagu daahdaaho oo lagu maaweelo oo xadiid iyo sheeko ah ayaa ka mida dadka kuwa markaa ka bayac mushtara ama markaa soo iibsada liyudilla can sabiilillaahi, si ay dadka uga dhumiyaan ilaahay jidkiisa. meeshay qur'aanka ka aqrin lahaayeen ayay heesaha qaadaan, meeshay diinta iyo wacdiga ka dhegaysan lahaayeen ayay muusiqa iyo heesaha ka dhegaystaan liyudilla can sabiilillaahi bigayri cilmin, ogaal iyo cilmi la'aan. waxay sidaa u yeelayaan waa diinta alle oo ay si fiican u fahmin, waa caqligooda iyo qalbigooda oo aan diinta ka daadegin. wayattakhidahaa huzwa, waxayna ka dhigtaan arrintaa arrin huzu ah, wax lagu daaho oo lagu jeesjeeso ama markaa lagu lahawsado. ulaa'ika lahum cadaabun muhiin, dadka sidaa wax yeela waxa ay leeyihiin cadaab muhiin ah oo dulli u saaxiiba, ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. in walba oo heese ku dadaasha, qolo walba oo soo iibsata cajalooyinka ay ku duuban yihiin, qolo walba oo u riyaaqda ama jeclaata ama mar walba soo dhowaysa, lahum cadaabun muhiin, waxaa u sugnaaday cadaab muhiin ah, cadaab dulli iyo dhibaato u saaxiiba ayay leeyihiin. wa idaa tutlaa calayhi, waxaa kaaga daran dadka heesaha ku dadaala, mar walba waxay diidaan aayaadka ilaahay, xaqa marka loo sheego iyo diinta marka loo bayaaniyo ma ogola. ilaah wuxuu yidhi: wa idaa tutlaa, haddii lagu akriyo calayhi kaa korkiisa, waa midka heesaha u riyaaqa, midka soo dhoweeya oo jecel aayaadtunaa, aayaadkeenna haddii lagu aqriyo meeshuu ka raaci lahaa, u soo dhowaan lahaa, diinta alla taageeri lahaa, wallaa mustakbiran, waa jeesanaa, wuu ka jeesanaa asagoo mutakabbir ah, asagoo isweeweynaysiinaya oo mar walba raba inuu diinta alle ka kibro. kaan lam yasmacahaa, waxaad u malaysa sidii asaguusan aayadaha alla maqlin. ileen dhagaha ayuu ka qufulayahay, indhaha ayuu ka la'yahay, waxaa ka maqan hidaayadii iyo wixii rabbi u dhowayn lahaa oo aayadihiisii jeclaysiin lahaa. markastoo aayadaheenna lagu aqriyo wallaa mustakbiraa, waa jeesanaa oo diinta alla ayuu ka jeestaa, heesahuu aada, axaadiista ayuu ka jeestaa, fanaaniintuu u riyaaqaa, nebiga sunnadiisa ayuu ka leexdaa, waxyaabaha ay fanaaniinta sameeyeen ayuu raacaa, rasuulka ayuu taariikhdiisa iyo sunnadiisa iyo siiradiisa baranin. laakiin abwaaniinta iyo fanaaniinta ayaa laga yaabaa ama badanba inuu wax badan taariikhdooda iyo waxa ay yihiin uu ku dadaalo. aayaad alla marka loo aqriyo wallaa mustakbiran, kaan lam yasmacahaa, waaba sidii asagoon aayadaha alla maqlin. kaana fii udunayhi waqaraa, dhegihiisana inay ku sugan yihiin culays iyo dhegajig. fabashirhu bicadaabin aliim, waxaad ugu bishaaraysaa kaa cadaab xanuun badan, sida uu heesaha u dhexgala jahannama loo dhexgeliya,
sida uu diinta u naco rabbi u nacaa sida uu xaqa uga leexday ayaa jidka mustaqiimka looga leexiyaa haddaba mar walba oo alle agtiisa uu ka leexdo iyo xaqana uu raaci waayo xaaladiisana ay sidaa noqoto waxaan ugu bishaaraynaynaa kuwa cadaab aliima oo xanuun badan haddaba walaalayaal aan iska ilaalina heesaha mujtamaca maanta jira badankiisa waxay aad ugu dadaalaan ama ay raacaan waxa lagu magacaabo fanniga iyo heesaha habeen iyo maalin ayay dadku ku dhex socdaan meel walba oo la aado iyo meel kastoo aad joogto maanta waxa camimay waxa lagu magacaabo heesaha sidaa darteed ayaa quluubta dadka muslimiinta badankoodu ay noqotay maanta heesahana ay ku noqotay sida nafsada ay uga soo baxda iyo neefta oo kale maca daalika waxaad arkaysaa jiilka muslimiinta ah ee maanta jooga inay noqdeen kuwa heesaha u riyaaqa oo raaca oo mabda ahaan u aaminsan waxa lagu hormaro oo ilbaxnimaduna inay tahay macnaha heesaha muslimiinta maanta joogta jiilkooda haddaad su'aasho oo aad mid kamida weydiiso ama gabdhaha yaryarka ah ee da'da yare soo koraaya iyo wiilasha saasoo kale ah haddaad weydiisa maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto maxaad rabtaa inaad mustaqbalka ku soo baxdo wuxuu leeyahay uriidu an akuun waxaan rabaa inaan noqdo fanaanan mashhuuran nin fanaana oo caan ah najmi saatica oo bannaanka yaala iyo xidiga fanaaniinta inaan noqdo ayaan jeclahay taasuu kugu jawaabaa waa shay aad looga naxo waa arrin muruga leh inay muslimiinta xaaladoodu sidaa noqoto in badan oo ka mid ah haddaba walaalayaal heesuhu waa xaaraam waxay ka mid yihiin waxyaabaha alla diintiisa qofka ka fogeeya waxay ka mid yihiin waxyaabaha qalbiga qalajiya oo diinta ilaahay mar kasta kaa durjiyee walaalayaal ka fogaada oo ka durqa ha raacina oo ha dhegaysanina rasuulka sala allahu calayhi wasalam wax badan ayuu dadka uga digay war heesaha dhegaysigoodu waa shay aad iyo aad u foolxumo ah waa shay dhibaato badan oo rabbigeen noo diiday war diinteenna inaan raacnaa nala amray aayadaha qur'aanka inaan ku dadaburno oon raacno oon aqrino oon ku qushuucno indhaheena ay biyo uga soo qubtaan maca alasaf waxaad arkaysaa maanta qur'aanka marka la aqrinaayo waa ku sheekaynaa ama maba dhegaysanaba marka qur'aanka la daaro dadku way ka kala ordaan heesaha marka la daaray u soo riyaaqaan waa u qushuucaan indhahooda ayaa dadka gobolka midabiya uga yimaada heesaha dhegaysigooda dartii ilaahayna wuxuu yidhi aladiina ittakhaduu diinahum lahwan walaciba dadka qiimaha aan lahayn ilaahay agtiisa aan khayrka iyo wanaagga u oolin cadaabka loogu talagalay in la geliyo oo mar walba jahanamo loo diyaariyey waa kuwa diintooda ka dhigtay lahwiga iyo cayaarta ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala diintooda ayay lahwi ka dhigeen wax lagu daahdaahay ka samaysteen aladiina ittakhaduu waa kuwa ka samaystay diinkooda lahwiga iyo waxyaabaha lacibka iyo cayaarta ah yay ahaayeen dadka laga hadlaayey waa dadka naarta la geliyey waa qolada asxaabu naarta ah ileen ilaahay ayaa yidhi wanaadaa asxaabu nnaari asxaaba aljanna dadka asxaabu naarta ah ee naarta asxaabta u noqday waxay u soo naadinayaan dadka jannada ku jira jannada waxaa galay dadkii aayadaha alla aqriyey diinta raacoo ku dhaqmay xaqa fuliyey oo diinta kor u qaaday jannaday galeen dadkii heesaha ku raaxaysan jiray dadkii heesi jiray iyo kuwii alifi jiray iyo kuwii jeclaa intaba cadaabkay galeen qoladii cadaabka galay ayaa kuwii jannada galay u soo naadiyey